Dowladda hoose ee Beledweyne ayaa faahfaahin ka bixisay halka uu marayo qorshaha deegaamaynta dhulka iyo bixinta jidadka oo dowladda hoose ee Beledweyne ay ka wado duleedka waqooyi ee Beledweyne deegaan dhaca iyada oo la fulinayo amarka maayarka Beledweyne Nadar Tabax maalin lagana fogaanayo in dhulka cusub ee la deegaansanayo uu noqdo mid isku raran ah waaxda dhul bixinta dowladda hoose ee Beledweyne ayaa dardar gelisay qorshaha deegaamaynta dhulka iyo bixinta jidadkaasi qorshahaasi oo haatan heer gabagaba ah maraya agaasinka waaxda dhulbixinta dowladda hoose ee Beledweyne Mudane Xuseen Maxamed Fiidow Dhagay oo kormeeray deegaanka ay howsha ka socoto ayaa sheegay in dhulkan deegaamaynta cusub ay ku bilowday dowladda hoose ee Beledweyne laga heli karo biyo macaan iyo koronto waxa uu ugu baaqay bulshada in wixii maanta ka dambeeya si rasmi ah loo deegaansan karo maantay waxaan rabaa inaan ka hadlo meesha tan shaqada laga qabtay iyo waxa ay tahay iyo waxa loola jeedo iyo sababta loo qabtay kow beertaan meeshaan joognaa beer xareeda oo muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay ayay ahayd sida sharcigu qabo dhulka waxaan heshiisaan la galanay in boos looga dhigo oo naga soo dalbaday waxaan ka sameynay shaqada ay u jeedin oo cid walba ay daawo karto master plan kana ka sameynay beertaas nin Cabdulla Cadow Sharaawi liira muwaadin ah iska lahay si sharci uu noola soo xiriiray si sharci aan uga shaqeynay waxaan rabaa marka inaan la hadlo bulshada Soomaaliyeed meesha tan aan taaganahay waxay kala dhankan waqooyiga waxaan naga saaran tuulo la yiraahdo Hiiraan Bile waxaan rabaa inaan la hadlo dadka kule beer xareeda magaalada iyo Hiiraan Bile intii ka dhaxaysa oo dhinac walba naga jirta waxaan baaq u dirayaa dadka kule oo muwaadiniinta inay yimaadeen xafiiska dowladda hoose ay la soo xiriiraan si loogu sheego shaqana looga qabto meeshaan iyo magaalada intii ka dhaxayda beer waa uga dhamaatay waxaan u sheegaynaa dadweynaha inay beer uga dhamaatay na ay tahay boos in nashqad la saaro oo deegaan loo bedelo muwaadin kastoo la iyadoo la boobayn oo wax dhibaato loo geysanayn ayaa sidoo kan aan uga shaqeynaa percentage-kii dawladdu ku leedahay bay ka qaadanaysaa sida sharciga inaan marino waxaana ujeedadu aan ka duulayna ay tahay in dhalaan lagu dega magaalada Beledweyne dhulkan degsiimadu ay gaartay oo dhul beereedka in nidaam iyo nashqad loo sameeyo jidkaanad u jeedin waa 10 mitir wali kama dhicin Beledweyne jid intaan leeg oo laga sameeyo waxaad u jeedin baaxad intuu leeg yahay booska ku yaala booska ka birimada ee dhulkan wuxuu ka qiimo badan yahay 20 boos oo jid lahayn waxaan rabaa bulshada inuu u iftiimiyo boos aan jid lahayn booska ku yaala dhulkan booska kamid oo maanta aad ka cabirataa wuxuu ka qiimo badan yahay 10 boos oo jid lahayn waxaan rabaa inuu u iftiimiyo bulshada Beledweyne in master plan-ka laga bilaabay meeshaan in magaalada iyo degsiimada la gaarsiiyo la rabaa intaan amarkaas ku bixin waxaan ka codsanaynaa in xafiiska dowladda hoose la soo xiriiraan dadka isku leh sida amarkan lagu siiyo maayarka magaalada Hiiraan Bile iyo magaalada Beledweyne in degsiimada la gaarsiiyo aan ku amrana sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dadweynaha magaalada Beledweyne inay u dhagan nuglaadaan amarka dowladda hoose ka soo baxay oo lagu sameeynayo master plan-ka iyo jidadka ayadoo ka duulayno amarka duqa magaalada iyo baahida loo qabo in la helo jidad lagu dego magaalada waxaan marka bulshada ugu baaqaynaa beertaan Cabdulla Cadow Sharaawi saacan wixii ka dambeeya cid kasta oo gada karta waa dhul sharciya waa u furanta inay gadato inay sharciyay leedahay nidaamay leedahay jidadkaas loo sameeyay kuwa kalena waxaan rabnaa waxaan ku daba joognaa inaan u sameeyno ayagana jidadkii annagoo raacayna sharciga dhulka ee tilmaamaya qodobka 22 ee xeerka dhulka iyo qodobka 19 ee xeerka dhulka annagoo raacayna ayaan dadka annagoo ku xidgudbin aan sharciyada rabnaa inaan ugu shaqeyno dhul sidiisaba laba nooc ayaa degsiimada suurtagelida waxa suurtageliya biyo koow waa biyo laba waa koronto meesha tani waxa dhaxmarta biyo macaan oo ceelgaal laga soo qaaday waxa kor taaganaa beebki biyaha gudbinay oo ceelgaal dhulkan wuxuu leeyahay biyo waxaan hadda kor taaganaa beebki biyaha gudbinay oo magaalada siiyo biyaha oo laga soo qaaday ceelgaal shirkadda
mooyasxada hiiraan watar ka samaysay magaalada beledweyne halkaana waa mara sidaas darteed dhulkan waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha ku nool magaalada beledweyne ama dibadda ku nool in dhul lagu noolaa karo wixii lagula noolaa kara uu leeyahay sababta istiraatiijiyadda aan u beegsanay iyo qorshaha ay dowladda hoose jeexdayna waxa sabab u ah biyaha laga helay ceel riigana waxa laga sameeyey duleedkayna dhankan wuxuu naga saaran yahay ceel riiga oon weli beebabkiisu soo bixin sidaas darteed meeshaan iyo magaalada in dadweynaha iskor saaran inaan ku soo rarnaan rabnaa waxaan rabaa inaan digniin u diro dadka baalooyinka iska qaata oo dhulka bannaan isaga jeexjeexa jid aan dowladda hoose bixinu sharci ma ahin mana sharcina ma noqon dooyo mana noqon doono waxaan uga digaynaa jidka duurka dadka dhulka duurka baalooyinka iska marina oo dowladda ay mas'uul ka toon sharci lahayn jid aan dowladda bixinu sharci hayna uga digaan maxamed ibraahim siyaad telefishinka Kalsan beledweyne.